kala fadhigii 7-aad ee golaha wasiirada Somaliland oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada oo hogaaminayay madaxweynaha qaranka Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta waxa laga hadlay arrimo door ah hadaba waxyaabihii laga hadlay waxa ka mid ah abaaruhu ay runtii meel adag marayaan golaha wasiiradu isagoo ogsoon isagoo runtii si dheer waxay uga wada hadleen xaaladda abaaraha dalku meesha maray madaxweynuhu wuxuu hore ugu dhawaaqay guddi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku oo ay ku jiraan dhammaan dadka waxgaradka ah iyo dadka wax aqoonta ah ee reer Somaliland iyo qayb ka mid ah xukuumadda hawshoodii si fiican bay u socotaa meelihii loogu talagalay iyo siday wax u kala daraayeenna waa shaqadii uga socotaa shaqada waxaa ka hadlay wasiirka biyaha iyo gudoomiyaha hay'adda Netford ayaa warbixin rasmiya ka bixiyay iclaamka waxyaalihii ka qabsoomay maadaama ay hadda waxyaalaha ugu daran yihiin biyaha iyo cuntada dadka ka xukuumad ahaan waxaa la isla gartay in hawsha si baaxad leh loogu diyaar garoobo iyada oo lala kaashanayo dhammaan cid alla cid ay arrintaasi khusayso iyo ummadda reer Somaliland iyo dadka muxsiniinta ee wax bixiya intaba in wixii effortisa ama hawla lama laabo meel fiican bayna marayaan hadday biyo yihiin iyo hadday cunto yihiin waana la wadaa hawshana halkaas ayaa la isla gartay in la sii laba laabo xaaladda amnigu dalku wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhageysteen waxaa la isla qaatay inuu meel fiican oo ay marayso way jiri kartaa qof iyo labo ama kaysas iska dhacay laakiin kays kasta oo dhacay wuxuu noqday mid la controlay oo sidii loogu talagalay u maraya systemkiisa iyaduna dalka oo dhan qof kasta oo muwaadin waxaan ku wargelinaynaa inuu xaaladda nabadgelyadu meel fiican marayso waxaan kelmad ka oranayaa arrimaha social media waxay noqdeen wax qof kasta oo bilaadan ah oo muwaadin ah iyo ummadda reer Somaliland ba gurigooda ugu galay wax alla wixii la doonaa lagu qorayaa wax alla wixii la doonaa lagu sheegayaa qof alla qofkii la doonaa sidii la doono loogu mu'aamaradaynaya ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay marka warkaa aad ku aragtaan cidina yaana yaqiinsan qof kasta waa wuxuu access u leeyahay shakhsiyad kasta oo caalamka ku nool waxay rabtay ku qori kartaa laakiin inaad ogaataan inay ila xogogaali warkaasi ka soo baxay inaguna dad muslina ayaynu nahay inaan qof muwaadina ama qof islaama cardigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa lagu xadgudbo diinteennu ma bannayn sidaa daraaddeed mass media wax kasta oo soo mara haddaanay ila rasmiya lahayn macnaheedu maaha run muwaadiniintana waxaan leeyahay aynu xogogaal dhaba ka noqonno waxyaalaha guud ahaan dalkeennu marxaladaha aynu hadda maraynaa waxayna ku hagaysaa marxalad runtii mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibaddu bilihii u dambeeyey waxaa socotaan inay dhaqdhaqaaq badan ama dalka dibaddiisa ha noqoto ama dad fara badan oo caalamka inuu ka dhaqdhaqaaqa ha noqotee waxaa muuqda inaynu arrimo badan oo arrimaha dibadda ah aynu ka muujinnay niyayiro fiican iyo niyad fiican inay inoo muujiyeen marka qof kasta oo reer Somaliland waxaan leeyahay iyaduna halkaa waxaa inoo ka soo kordhay inaynu hankeennu meel fiican marayo waxaa laynoo ka baahan yahay oo keliya innaga inaynu noqonno ummad isku tiirsan ummad is aaminsan ummad wada jirta ummad wada noolaata ummad isku fekera ummad u hoggaansanta sharciga iyo qawaaniinta dalka aynu ku dhaqannahay haddaynu intaa inagu noqonno ummad wadaagtaa waxaa khasab aynu ku helaynaa wax kasta oo doonisteenna iyo wax kasta oo aynu rabno inaynu qabsanno cid walibana waa isu soo keentaagaysaa daawanaysaa waxaa idin soo diyaariyey maxamed ibraahim biixi lixle oo idin leh habeenku ha idin wacnaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu